Kenya horta gelitaanka u horeysay oo gelaysay anigii dadkii maxay ahayd markii gelaysay cid lagala tashaday ma jirin. go-aan Kenya gaadhay go-aan waliba on security councilka Kenya National Security Council NSC-da ay galeen bay ahayd go-aan ay gaareen. anu markaa gudoomiye Kenya baarlamaanka ahaa wada hadalka ka ku saabsan markii xurgufteeda iyo xanteeda aan maqlay waan ka digay beri waxaan yidhi annaga yaana gelin laakiin ciidama ka tirsan gobolada nagu soo xiga maadaama annaga xuduud aan la leenahay maadaama ay ka dhaceen qisooyin fara badan ay ka dhaceen waataa ku fiican ka hadla qisooyin fara badan ay ka dhaceen annaga yaanan gelin anigana mar kastaba waxaan ka soo horjeeday frontline stateska inay galaan Soomaaliya maxaa dana khaas oo colaad baa ka dhaxaysa frontline state markay gasho meel inta badan wadankii bedelkii ay ka shaqeyn lahaayeen suu u soo kabsan lahaa waxay ka shaqeeyaan si u sii burburi lahaa ayga laakiin taariikhdii markaad sii wado burburkii ay ku sameeyaan wadankaasayto jiraanke marka dambe iyagu dib ugu imaan haddana iyadana way burbureen wadanka Cote d'Ivoire la dhaha Nafoy Boyne la dhihi jiray ayaa joogay oo madax ah oo aad francophone-ka wuxuu ahaa ninka Afrikaankaba ay ka wataan qayb adag buu ka qaatay burburkii wadanka la yiraahdo Liberia qayb buu ka qaatay burburkii wadanka la dhaha Burkina Faso maxaa dhe ninkii madaxweyne ka noqon doona marka dambe oo Compaoré la oran jiray gabadhiisu qabay markii la galay Liberia oo fidnada ay ka dhacday Cote d'Ivoire waxay ahayd wadanka ugu nimca badan oo ugu qiimo badan Afrikaanka oo dhanba francophone dhanba intay galay Liberia laakiin fidnadii bay ka shaqeeyeen dadkii hubka siiyay oo lacagta siiyay wax kasta siiyay oo dadkii ka soo horjeeday centerkay ahaayeen markay burburta Liberia dadka loo soo diray oo la yiraahday ka qayb qaata peacekeeping force Sierra Leone bay ahayd ciidamadii ka qayb qaateen Sierra Leone peacekeeping force-kii wiil yar oo saajin ah 29 jiray oo kii DJ-ga ah xasuusin kale magaciisu yar maqan yahay way dib ugu noqdeen Sierra Leone inqilaab bay sameeyeen burburkii ka dhacay Liberia gudaheeda kooxaha ka shaqeeyeen haddana Cote d'Ivoire haddana la baabi'iyey Guinea Conakry oo iyadana xuduud leh oo ku raaxaysanaysa dhibka ka socda Liberia iyadana way gaadhay waa kay burburtay saddexda way burbureen marka horta anaga oo ku xisaabsamayna qatarta ee leedahay sidii anaga u burburi karnaa ana beriga waxaan iriyaana dhaxgal laakiin mar haddii la galo dhaqan buu iska leeyahay adduunka oo dhanba ciidankaada meeshii uu galo waa in la garab istaagaa marka waxay noqotay inaan aniga maalinkeeda ahayd waan ka dhaxlay hansarkana ka wardoon waxaan iri waan galnay qatar baan galnay laakiin saddex shay waa inaan haysano gelista aan galayno entry plan baan sameynay exit planna waa inaan sameynaa waa sida ugu degdegsiya badan nimankii al-shabaab oon isdhahnay markii hore wadankaanaga khatar ku keeneen linda ichi operation linda ichi waxaa wadankaanagaan difaacanaynaa marka dhibkii nooga imaanaya xagga ayaan right of pursuit intaan u sameyn right of pursuit waxaa weeyaan xaqa aad u leedahay qofkusoo guuray meeshuu ku cararay inaad kaga daba tagto in lagaga daba tago lagu burburiyo maxayd al-shabaab meeshadoo dhanba la tirtiro markii la tirtiro dib looga soo noqdo ciidamadii qaranka u lahaa iyo ciidamadii gobolka la iskaga aruurin karo xuduudkaada dib ugu soo noqo ilaasha ayagana ciidanka hawsha ma qabta ma dhicin maya waxaan samaynay wadada un baan samaynay dobli baa laga galay waa la socday waxaa la qabtay maxay ahayd qoqaani waxaa la qabtay afmadow waa la qabtay mid kastana sanad baan ugu qaatay at least ilaa afmadow haddana kismaayo la tegay ahlan wasahlan intana loogama kicin intana loogama kicin magaalooyinka gadow lama dhexgelin jubada dhexe lama gelin jubada hoose oo maxay goboleedeeda hoose oo kolbiyo iyo badhaadhe iyo meel kastoo dhanba iyadana laguma howlgelin dhinacyaha wadadan dheer laguma howlgelin markii dambe waxay noqotay inay kismaayo iyo qoqaani iyo afmadow ay kala xirmaan oo laba dhexda al-shabaab ka shaqeyso oo 5 kilomitr keli kismaayo banaankeeda ay al-shabaab joogto 2013 Kenya waxay ka dhaceen 2013 Kenya waxaan ogaantay ka dhacay
muhiimadda waxaa waaye aniga waxaa ii soo baxday berigii kuutaala galkaba in la tirtira al-shabaab inayn aheene in dana kale laga lahaa sida ay ka mid tahay waayahan hadda muddoba laga soo jooga ada nin yar baa tahay laakiin waxa weya berigii shuuciga uu jiray ninka afrikaanka oo despotka ah oo wadankiisa cariiriyey oo musuq maasuq iyo qurun iyo wax kastoo naba ku sameeyeen markay arkaan inuu wadankii sii socon karin sidaa shuuci baa nagu soo diray baa la oran jiray marka galbeedka way imaan jireen sida Mobutu Sese Seko kuwa la midka oo dhan shuuci baa nagu soo diray markaasito maraykanka iyo reer galbeed oo dhan waxa doontay ku siinayaan waayihii dambe waxay iska noqotay bicmishtari bay noqotay waxaan la dagaalameynaa argagixisa muslimiin ah annaga waa kiyaanu dhex galnay xasuusin kara mooyii markii halkan Westgate dhibaatada ay ka dhacday 2013 ay ka dhacday ninkii ciidamada Kenya weynaa Karangi la oran jiray afar wiil bay ahaayeen afar wiil oo kale oo waliba mid uu yar Soomaali u yahay oo qoligiisa watay baa intay soo ceersadeen hal qol isku keenay muddo yar baa lagu dhameyn karay hawshiyadeed laakiin ciidankii rasmiga ah oo Kenyaanka soo galay ka baxay dheheen waa kii hadii sawaariikhda maxaa lala dhacay maxay ahayd la gubay meesha oo dhan dadkana la sii laayay dhibaato badan ay dhacday Karangina uu yiraahday we are facing international terrorism okay marka tiraahdo international islamic terrorism Mareykan reer galbeed waxa lacag baa lagu siin waa gadmi dhaqaalaha heli wax kastoo nabad heli marka dan baa lagu lahaa xagga waxaa la bilaabay dhuxul la gato sokorta laga shaqeysto ka soo degaysa xagga wadamaha badan iyo inta qoran riboodada UN-ka oo farada badan oo adiga aad arkisay oo waxa weeyaan oo khariban oo fara badan systemka anaga ay ku dhex jireen military anaga ku dhex jiray dadka madaxda inta bar waa ku dhex jiray wax kastoo dhan horta taa iyada ah markii dambana rihaatin baa lagu sameeyey oo unilateral entry go-aanka kariyaan aan gaarnay waa kii haddana la xiriiray lagu riixay inay sameeyaan inta badanaa qidooyinka ceenkaasiito labada wadan oo jaarka u ah Soomaaliya oo Kenya Ethiopia ay tahay wax ay isla og yihiin bay ahaan jirtay maadaama Addis Ababa ku taalana meel Zanaawi iyo kuwii ka dambeeyay oo dhanba awooddaasayto nimanka Tigreeda ah oo AU-gii haysteen waa fahamtay Soomaa AU-gii baa isbedeshay waxay isbedeshay Ethiopia baa isbedeshay Ethiopia tii hore maaha isbedelka Ethiopia ka dhacay hadda wax badan buu iyo qaribay wax badan oo ku talagalka Kenya Ethiopia ahaan jirta markasta in Soomaaliya ayr la burburiyo la baabi'iyo la kaygiyo gobol laga dhigo iyaga la isku diro la kala diro marka dambana la tirtiro way hadda waxa weeyaan adeeg yar baa ka imaaday adeegan ku ka imaaday filim waa baa dhacay fara badan baa dhacay ayagii baa hadda ku sigteen isku hor imaadaan labadoodii midna ay leedahay Soomaaliya ciidankeedana loo dhiso burburka Soomaaliya wax dambe faa'iido inuu jirta malaha Soomaaliya hadda dowladeedana aan dhisno iyo corruption ka anagi fasaadka anagi waxa anaga wali istusahayno in aan sii wadi karno waxyaabo aankaas kale oo doqon rageed iyo dibixaas meesha macalku barto macalul ugu dhinta maashi meesha inuu ku yara baranay ha noqoto dekadii ha noqoto maxay ahayd dhuxushiyada ahayd ha noqoto taariikhiin wixii soo jiray oo tan iyo Kenyatta ahli islaas waqtigii soo jiray wixii baan ul ku noqsanahay hadda maanta waxa weeyaan ayagii oo ay ka dhalatay niman maya dowlad ka dhalatay Soomaaliya ka yara duwan kuwii hore oo in yar wadaniyad ay ka muuqato in yar qab ay ka muuqatay iyo qarannimadanada aan muujina ilaan qaran baan nahay oo wixii hore oo berigi hore Gabriel uu prime ministerka iyo madaxweynaha iyo wax kastoo dhan buu asaga amar laga qaadanayo oo cabinet gurigiisa hagaajinay nek Farmaajo wuxuu nasiib ku yeeshay markuu soo galay waa ninka koowaad oo salaantii inuu salaamo Gabriel diiday oo yiri wali intuu la hadlay igar yiri halay dhaafiyo marka waxa weeyaan meesha waxa tii oo isbedel yar ka dhacday iyo wixii hore loo bartay marka waxa weeyaan waxaad u baratay markaad kan ku sheegay doqon rageed idib xaas meesha macalku barto macalul ugu dhinta anaga waxa meel macalku baranay yaan hadda aan sidii ordahayna khasaaro badan baan naga soo gaartay khasaarooyinka ka dambe naga soo gaaray doontana way badan yihiin markaan aniga saa ku leeyahay waxaan ahay nin wadani ah oo Kenyaan wadankiisa jecel laakiin waxa ii muuqataa godadka aan anaga si fudud u gali karno waxa kale oo ogsoonahay kuwa xagga jira inaan isku dhignahay ninka Soomaaliga wuxuu moodayaa markaad Kenyaan baad ku faanayso waa inaad Soomaali baa nacbahay ay kugu xigto
kenyaan baan ahay markaad ku faanayso soomaalina waa walaalahayga wanaagoodaan rabaa ficnidoodaan rabaa laba wadan oon kala gu'i karin bayna yihiin laakiin anaga hadda Kenya ka tirsannahay anaga Kenya ka tirsannahay sovereignty-giina waayeen مثلا بوريس جونسون وهذا برايم مينستر كاكي ماشي اللي يراهدو انجليز كاكي جنسيه امريكا كهيست الا يمان لويت لغما اورنا امريكا انجليز كجعشح اصل كيسر وتركي لكن مهمته waxa weeyaan marka hadda jinsiye laga hadlay waa prime minister waa ninka wadanka idil xukumayay laakiin sanado gudahood horteed dhowr sano horteed ayuu sii daayay maxay ahayd uu underannounce gareeyay his own American citizen qaanuunkaana dhigay qaanuunkaana ogolaanaya marka horta ninka Soomaaliga oo Kenyaanka oo wadaniga oo wadankiisa u dagaalamayo maaha inuu noqdo nin kaba qaad oo isku dayay sida keli oo kaga gadi karta kuwaas ku xaq ay hadeen inay tahay nacam muujiso kuwa dhashay xaq oo isku dhigaatiin ma in marna nobody should ever make us to choose between these two laba shay oo isbarbar dhigi karo aabahay hooyada kala dooro lagu ma dhigi karo wadi fantay Soomaa marka ma wanaagii baan isla wada doonaynaa ma wixii xumaa oo beriga hore oo qurunka ahaa oo ziftiga ahaa oo ku talagalkiisa uu ahaa qaybo kamid ah Kenya amxaari iyo berigaasaytu ku kiyaa heshiisay dadka buurta dago Kenyatta iyo Haile Selassie bay heshiiyeen dadka loo heshiiyeen waxay oromada farada meel xagga iyo Soomaalida inta joogtay wadi fantay Soomaa marka uu asal Kenyatta wuxuu ku xisaabtamay ninka hore danihiisa qaasku ku xisaabtamay danta qoyskiisa ku xisaabtamay maraha wadankiisa Allah wadankiisa hataa ma oran karo maxaa dan wadan kuma jirin madaayade inaad qoys nacdo oo jinsi maxaa aad qowmiyad nacibto ma ahayn laakiin wuxuu istusay markii maadaama Soomaalida ahayn dadka ugu firfircoon oo Kenya hantida haysteen marka haddii lala falbaxa inay kala carari doonaan oo fursadii ay ku keedi kale faa'iideysan karto sida beerihii iyo guriyada cadaanka ay ka tagayeen iyo hindiga ka tagayeen oo meel fudud laga gadanay bariga iyaga ay gataan wadankan ku soo wada xawiyeen